يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغال فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا سريع أبو حسن أو كسود وينيا المصيف فوتو أستاذ كسود. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارة دمانتود والسلام يا كسوق قيب شيء برنامجك. ومجلس كيني فدقيني لواد تضوات كي هروح إنه صور لما يسني أو إنه صور الماضي مجلس كي كوباد وإنه كصور المركز إسكا هردع iyo maxay hayday muqaddimo ka warramaysay asbaabta ilxaadka xalqadeena caawana insha Allah waxaynu ku yara daba dari doonaa hal qodob kadibna maqsadkii mawduucaynu geli doonaa insha Allah halka qodob aan ka horreysiinayay intaynaan mawduuca galin waxa weeyaan kulli ilxaadkan aynu taaganahay casrigan ama الإلحاد المعاصر سو وح عصب أو سكر دي مجرد ولا حجو ولا شبهة عصب بل ونجي صور شجنا إن وحياة مضحكات إليهين أو حتى محي هيدي عقل بني آدم كأن كسور إكرينين جواب السخيفة من رقار إني بحنيان وآد وليته ونجي صور شجنا مركا هذا محا بوق إنتن لاج إيو مرنك إنتن لاج كاني يضادن هل مشكلة باتشرت أو يجو أي مكانين مشكلة ده سوى حويانون أو كليات حويان يكسو كورلي ومحاربة الدين إن الدين تلا دجالمان مركز الدين تاسي هالنقطة كريستان كه هالنقطة إسلام كه هالنقطة يهودية ده يو هذا واحد دجال كل جيران ودينه سماوي أها أوران مركز أنت عصبي وأنت عصبي أتصاروا حين كفلان هتصاروا سوق قاضينا مركز مؤتمر يشير بقفته مركب ملحدين الدنيا دون يسوي مادين مقالة السالك لا محايد كاليفورنيا كتارلا أي قفته مركب جورقص لو كن يلحدي تبغى برنامج كاس واحد لقوه فلانقي يوم محايد الشركاس أي سوي مادين واحد لقوه فلانقي وحوها إن لكانوا قضبوا يو استراتيجيات يو الطرق محايد هيدي لقوه بدليو dadku aaminaadii aaminsan yihiin ilaahay oo la leeyahay qodobadaas laga maarmayaa ilaahay qodobada ay keeneen ee halka lagu falanqeeyay waxa ku soo urureen saddex qodob la isku keenay marka ama laga doodayay ama la falanqeynayay oo laga hadlayay saddexda qodob waxay ahaayeen cilmigu awood ma u leeyahay inuu diinta nolosha ka saaro oo noloshu dadku ay iska noolaadaan bilaa diin shaqada cilmigu ma qaban kara macnaha saynisku arrinta ma qaban kara وقضوا كوادي فلنقينين قضوا كلابات أي فلنقينين أي كهلين وحوها علمه محو يسوي كينيا قد كم محو كينيا برشة محو كينيا سو بدل ونقض الدينتي دينتي ما إيش لقصة أو علمي وصقره أو ساينسكي وصقره ساينسكو سو محو كينيا محو سو كردينيا محا برشة دي وكينيا وقضوا كلابات فلنقينين قضوا كصدحات أي فلنقينية إنه دنبينا وحها suurtagal ma tahay bay ilaahdeen inaynu nolol wanaagsan ku noolaano inuu si fiican u noolaano biduun diin iyadoo diin jirin nagoon islaam aaminsanayn ama kristan aaminsanayn ama aan yahuudiyad aaminsanayn diin la'aan inagoo ma noolaan karnaa nolol caafimaad qabta oo fiican oo wanaagsan saddexda qodob marka ay ka doodeen dabadeed saddexda qodob si loo fuliyo oo qaraarkaas u noqdo mid hirgal
waxa ay markaa go'aan ku qaateen 3 qodob oo kale. 3daas waxay yiraahdeen oo qodobka koowaad ah kow inay diintu tahay khatar mar walba keenaysa cunfi iyo dagaal iyo maxay ahayd mushkilad. Si dadka markaa diintii loola dagaalamo oo diintii looga fogeeyo waa in diintii la suurad xameeya ama diintii lala dagaalama oo la eedeeyaa oo la cambaareeyaa. Marka waxay diintii ku cambaareeyeen yiraahdeen horta diintu waa waxa cunfiga iyo colaadda iyo dagaalka keenaysa oo qodob. Qodobka labaad waxay yiraahdeen waa in diinta gebigeedaba laga takhalusaa oo meesha laga saara. Sidaas daraadeed waa in booskeedana uu soo buuxiyaa cilmiga iyo saynisku. Qodobka saddexaad ee ay keeneen waxa uu ahaa isaguna uma baahnin bay yiraahdeen Ilaahay si aynu u noqono dad akhlaaq leh oo dhaqan leh. Marka dhaqanka iyo akhlaaqda iyo qiyamka wanaagsan waxa laga qaadanayaa oo halka balbiro u ahay waxa weeye waa maxay ilxaadka. Intaasay soo ururiyeen marka waxay soo eegeen diintii ma laga maarmi karaa nolosha ma laga saari karaa kow. Qodobka labaadna waxay keeneen duruqyadii diinta lagula dagaalamayay oo 3daa qodob ay ku soo koobeen. Marka hadda waxa mushkiladu ay tahay wax kale ma aha waa la dagaalanka diimaha ay la dagaalamayaan. iyagana toos u tasriixiyo qaarkood ay ku leeyihiin addiinu summun daar, diintu waa sun dhibaato leh. Marka anagu suntaasaanu doonayna in la dagaalamno ma rabno inaan idhaahno Ilaahay ma jiro oo gacmaha aanu iska laabanno, laakiin waxaanu rabnaa inaanu ka takhalusno diintii oo diintii meesha aanu ka saarno. meesheeda waxa soo buuxinaya markaa sayniska ha noqdo cilmiga ha noqdo, laakiin waa in adduunyadii laga waayaa maxay diintii laga waayaa. taas waa keentay markaa inaad aragto dad badan oo Soomaaliyeed oo iyaga laftirkoodu dagaalamaya oo diintii la dagaalamaya oo maxay ahaydee wada maxay ahaydee weerar ha noqdaan, xijaabkii ha weeraraan maxay thawaabidii islaamka iyo soo hadina wixii sheeganay. taasi waa intaas. qodobka markaan ka soo gudbo maqsadkii iyo mawduuca dulucdiisa baynu bilaabaynaa insha Allahu. halka ay ka bilaabmaysaana waxa weeye adduunkan aynu joogno. Marka adduunyadan 3 ikhtiyaar baa inoo bannaan. kow in la yidhaahdo adduunyadani waa qadiim oo weligeedii allaheedba way jirtay, iyo in la yidhaahdo adduunyadani waa xaadis oo waa wax aan hore u jiri jirin oo laakiin mar bilaabmay, iyo qodobka saddexaad oo in la yidhaahdo adduunyada barkeedna waa qadiim barkeedna waa xaadis. 3daas ikhtiyaar baa inoo bannaan marka 3daas ikhtiyaar kolba kii aynu inagu qaadano ama xaqiiqada iyo xaqa ah markaynu tilmaano waxa si sahlan aynu u fahmi doonaa ama fududaan doonta insha Allahu mawduucyada iyo qodobada soo socdaynu ka hadli doonaa ah jiritaanka Ilaahay iyo adiladiisa iyo xujooyinka aynu u adeegsanayno. laakiin haddii aynu ku bilowno uun adiladii kutusaysay jiritaanka Ilaahay waa laga yaabaa wax badan oo kamid ah inaynaan isla fahmin. laakiin halka laga amba qaadayo mawduuca la iskala fahmayo ee laga jaan qaadaya waxa weeye adduunyadan bal aragtida aynu ku eegaynaa maxay tahay. aragtida aynu ku eegaynaa maxay tahay. adduunyadu weligeed miyay jirtay? adduunyadu may jirin oo way bilaabantay miyaa? mise adduunyada waxna waa qadiim oo weligood bay jireen, waxna waa xaadis oo mar dambe yimaadeen. marka 3daas option un baa yaalla un, mid afraad oo meesha imanayaana ma jiro. sidaas daraadeed cid waliba waxbay ku dhufatay, nin walba meel buu madaxa ku dhuftay. marka haddii inagu ta xaqa ah aynu insha Allahu aynu qaadan doono aynu tilmaano ah in adduunyadu ay xaadis tahay oo aan qadiim ahayn, halkaa waxa ku burburi doona insha Allahu sidaan arki doono doodaha ilxaadka oo dhan waxay xujaysanayaan oo dhan ba markaa maxay ahaydee meesha ka bixi doona. marka bal aynu eegno madaahibta iyo waxay ka aaminsan yihiin bal adduunkan iyo koonkan aynu joogno. haddaynu ku horeyno mulxidiintan casriga ee iminka jooga, iyagoo 3 qolay noqdeen. marka adduunyadii la eegay ee la yidhi bal adduunyadani maxay tahay, bal ka warrama weligeed miyay jirtay mise mar bay bilaabmatay. 3 bay u qaybsameen. marka kow qaar waxay yidhaahdeen adduunyadani iyadaa is abuurtay, qad shakala daatahu, adduunkaynu arkaynaa maatirkeeda iyo maxay ahayd enerjigeeduba iyadaa is abuurtay. hadalkaasina waa hadal sakhiif oo aynu arki doono insha Allah, hadal baadil ah. macnaha qof dhan oo saynisyahana laga yaabaa inuu fikradda aaminsan yahay.
waaya halkaa isaga waxay doobdi la istaagtay oo maxay ahayd xujo ay jawaabtii laga rabay uu ku jawaabay ay noqotay inuu idhaahdo adduunyadu iyadaa is abuurtay hadalkaana kulli jawaabteeda xagga dambaynu ku arki laakiin haddaynu si yar qadino shay mafcuul ah oo aan jiri jirin lagama yaabo inuu is abuuro tanaaqud baa ka dhaxaynaya macnaha iska hor imaad shaygu si uu isku abuuro waa inuu jiraa ile faacilku waa inuu yahay wanaga qaacidadii hore soo marnay ee falaasifada maxay ahayd maalinta hore ku radinaynay ahayd alfaacil yataqaddamu ala mafcuulihi bizamaan waa qaacidadaas marka oo tii aynu falaasifada maxay ahayd warkeeda ku soo reebnay aha marka mafcuulku iyo faacilka horeeya mafcuulkana dambeeya marka shaygu hal mar moodo noqon karo faacil iyo mafcuul sababtoo ah haddii la rabo in la abuuro oo makhluuq noqdo waa inaanu jirin haddii la rabo inuu wax abuuro oo khaaliq noqdo ama uu faacil noqdona waa inuu jiraa marka shayga hal mar ma noqon karo waxna abuura waxna abuura oo faacila lana abuuro oo aan jirin oo mafcuula taas waa qodobka qaar ka mid waxay yidhaahdeen may annaga shaqadaaba noloma dirsama adduunyadan waa la abuuray iyo waa qadiim iyo weligeed bay jiri jirtay iyo sheekada annaga naga dhaaf annaga keliya tana saaran waxa weeye inaynu adduunyada daraasad ku samayno inaynu cilmigeeda raadino inaynu qawaaniinteeda raadino inaynu fiisiyaageeda raadino bes laakiin may jirtay iyo may jiri jirin kama jawaabi maynaba marka waxay kuwaas noqdeen sidii goroyadii de madaxa la gashay maxay ahaydee quruuraxa hadda adigu madaxaaga aad qariso xujada isku diidaa ma aad cadceedda aad qol ka soo xidhato macnaheedu ma aha jawaabtii maad helin dadkiina ma qancin kartid kuwa saddexaad iyagu waxay idhaahdeen qaanuunkan fiisigiska ayaa abuurayba adduunyada adigu waxaad raadinaysaa cid adduunka abuurtay soo maaha adduunyadan waa la abuuray laakiin cid abuurtay waa qaanuunkan fiisigiska bes halkaasoo kaga baxay markaas hadda waxaa aaminsan hadda warga weyn hadda kada raggaa aynu maanta sayniska in badanoo ka mida leeyahay waa saynis yahanaa fikradaha noocaase aynan xataa aqbali karin ciyaalkeena yaryare aanay aqbali karin ay aaminsan yihiin wuxuu ku leeyahay qaanuunka abuuray marka halkaasoo kaga baxay sawirkaasina qaanuunku wax ma abuuri karaa qaanuunku wax alla wax abuuri karaa ma jiro qaanuunku wuxuunbuu ka sheekeeyaa shaygan siduu u shaqeeya un nidaamku u shaqeeya unbuu ka sheekeeyaa laakiin wax alla iyo wuxuu abuuri karaa ma jiro tusaale ahaan oo kale qawaanuun xaraka newton marka qaanuunadii newton ee dhaqdhaqaaqa iyo motionka aad eegto shaygu iska soconayaa shaygii soconayay ama shaygii taagnaa weligii allihii waa taagnaanaya ilaa wax dhaqaajiya ama joojiye la helayo waa qaanuun laakiin haddaynu rabno inaynu dayax gacmeed dhaqaajino ama aynu gantaal ridno ama aynu qori ridno qaanuunkaasi qoriga ma samaynin oo aakayga dib maalintii la sameeyey waynu naqaanaa inagu diyaaradna maxay ahayd qaanuunkaasi ma samaynin oo maalintii diyaaradda la sameeyey waynu naqaanaa inagu lagama yaabo markaa qaanuunku inuu diyaarad inoo sameeyo qaanuunka xarakada ee newton inuu diyaarad inoo sameeyo ama inoo sameeyo maxay ahaydee markab ama inoo sameeyo maxay ahaydee qori ama inoo sameeyo aakay ama inoo sameeyo dayax gacmeed suurtagal maaha qaanuunku wuxuu kuu sheegayaa sidee dayax gacmeedkan u soconayaa sidee qorigan haddii uu dhaco masaafe intee leeg buu ku dhacayaa jihadiisu sidee noqon doontaa qalloociisu intuu noqon doonaa intaasuu kuu sheegayaa laakiin lagama yaabo in uu abuuro ashyaada maxay ahaydee uu dabaqaya qaanuun haddii tusaale ahaan waxaynu ognahay inagu laba haddii loo geeyo waa afar waa qaacide maxay ahaydee xisaaba waa qaanuun haddii laba loo geeyo waa afar marka inaga oo taa aaminsani haddii $2,000 aad akoonka dhigato waa 4,000 laakiin 4,000 adaa dee soo shaqaystay adigaa akoonka keenay laakiin adigu aqoontaad u leedahay qaanuunka ah laba loo geeyey inay 4 lagama yaabo in lacag kuu samayso lagama yaabo 2 gaari intay samaysay inay isku geyso lagama yaabo 2 diyaarado intay samaysay qaanuunkii laba loo geeyey diyaaradna inoo samaynaya gaari inoo samayn maayo lacagna inoo samayn maayo marka qaanuunku isagu wuxuu buu sheegaa qaabku shaygu u shaqeeyee laakiin ma sheego awoodna uma laha mana tilmaami karo inuu shayga markaa uu abuuri karayo taas waa qodob marka waxaad arkaysaa dadka aynu hadda taaganahay aynu ku xiiqnay aynu mar walba lala doodayay ama ha noqoto kuwa maxay ahaydee waxan ay kasoo askumeen aasaaska u ahay maxay ahaydee reer Yurub macnaa caqliyadoodu siday tahay arkaysa marka saddexdaa qodob ayay u istaageen adduunyadii marka la isla yimaado saddexdaa qodob bay istaageen waxaynu soo marnay oo maalintii hore soo sheegnay falaasifadu waxay ka aaminsan yihiin adduunyada
falaasifadu waxay ka aaminsan yihiin baynu nidhi in adduunyadu ay tahay qadiim oo macluulun bidaat illah, ilaahayna maxay ahaydee macluulo ay u tahay, ilaahayna uu cilad yahay. halkaas iyagu istaageen marka, oo sida harka iyo qofku aan u kala harayninba adduunyada iyo u kala haraynin bay ku leeyihiin maxay ilaahay, iyagoo kuma laha ilaahay ma jiro falaasifadu, laakiin waxay ku leeyihiin ilaahay waa jiraa laakiin waa cilm khaaliq mu abuurin adduunyadu weligeed bay way jirtay, uma baahna maxay abuur iyo khalq uma baahna. halkaas ayuu ku soo istaagay marka falaasifadiin waxay taagan yihiin waa qadiim, laakiin waxay kaga duwan yihiin mulxidiintan oo aynu soo sheegnay saanic baa jira, macnaha ilaah baa jiray ku leeyihiin marka ayagu kow cilla waa adduunyada. taana waynu soo marnay qaacidadii iyaga aynu laba qaacido maalinta hore soo sheegnay. qaacidada ugu weyneed aan ku burinay waxay ahayd oo madhabkooda baabiinaya waxba kama jiraan ka dhigaya wuxuu ahaa alcillatu taama tastalzimu macluulaha bimacluuliha. cillada taamada ahi waxay laasimsanaysaa ama ay keensanaysaa macluulkeeda, ama laa yumkinu almacluul an yufaariqa can cillati. in cilladii taamada ahayd uu ka hadho macluulkii suurtagal ma aha. haddaan iminka xaashi ku qabanno dab, laabudda xaashidaas wayna gubataa, suurtagal ma aha in ay xaashidii guban weydo. haddii aynu biyo maxay ahaydee meel ku rushayno ama maro aynu ku qoyno, laabudda waa in maradaasi ay qoydo ama meeshaasi ay qoydo, suurtagal maaha in meeshaasi ay qoy weydo, waayo biyuhu waa cillo taama ah. cilladaa taamada ahi markaa cilladaa taamada ahi macluulkeedu kama dambayn karo. marka waxaynu arkaynaa adduunyada waxyaaba fara badan oo maalin kasta kusoo kordhiya, hadday dadka dhalanaya noqoto, hadday dhirta soo baxaysana noqoto, duufaanada, dabaylaha, dababka wadamada qaar ka dhacaya, maxay ahaydee xayawaanada dhalanaya. waxaynu arkaynaa adduunyada in xawaadis fara badani maalin walba ay ka dhacayso. marka xawaadista cusub ee maalin walba dhacaysa waxay daliil u tahay inaan ilaahay adduunyada aanu ahayn maxay cillo taama ah, ile kamuu dib dhaceen. taasina haddaba waa falaasifadii. intaa markaynu kasoo gudubno, maxaa haddaba inagu muslimiin ahay aynu ka aaminsannahay? innaga muslimiin ahay maxaynu haddaba adduunyadan iyo kownkan aynu ka aaminsannahay? waxaan bal caawa intii aan ka gaadho sheegi doonaa insha allah, bal dhowr qaacido oo tilmaamaya in caalamkani uu yahay caalam xaadisa cusub. in badan baa layga codsaday inaan bal in badan carabida sharaxo, ama aanan af soomaaliga inta badan aan adeegsado ama tusaalayaasha aan farabadiyo. marka kulley carabidan waxaa keenaya dee mawduucan waxaan ku diyaarnaa carabi, marka taas waa iska mushkilad. marka haddii insha allah waan isku dayaya markasta inaan bal turjumi karo, haddaan ilaabana waa nasiib. inagu waxaynu aaminsannahay haddaynu muslim nahay in adduunyadu ay tahay adduunye xaadis ah, macnaha adduunye mar bilaabmatay oo aan weligeed jiri jirin, xillina bilaabmatay laakiin aan ahayn shay weligeedii allaheed socday oo qadiim ah. sidaas daraaddeed waxaynu sheegi doonaa bal dhowr daliil oo caqli ah oo culimmadii muslimiintu ay sheegeen, wixii aynu xagga maalmaha kale ku tari karnay bal intii baaqiga nooga noqota, iyo bal wixii maxay ahayd iyaga xujiska ama adilada maxay ahayd sayniska ama cilmiga waynu gaari doonaa. laakiin waxaynu horreysiinaynaa waa xujajka caqliga ah, iyadoon sayniskani jirin, iyadoon fiisiyagan horumarka laga gaaray aanu jirin, ayaa culimmada muslimiinta iyagu waxa ay ka hadleen oo ay baraarujiyeen oo ay tilmaami jireen in adduunyadani ay tahay xaadis. marka qawaaciddii ay adeegsan jireen ee ay kaga warrami jireen ayaan qaar ka mid ah sheegi doonaa insha allah. kow, daliilka koowaad ilaa 4 daliil baan sheegi doonaa, wixii kala habeenada kala ku daliil. ka koowaad atagayur waa isbedelka. kow. ka labaadi waa alfaqru baahida. ka saddexaadi waa kiimikaan soo sheeginay falaasifada kusoo ridino ahaa alcillatu taama mustalzima limacluuliha. cillada taamadii waxay laasimsanaysaa ama ay keensanaysaa oo mar walba la socda macluulkeeda. ka afraadi maa thabata qidamuhu imtanaca cadamu. shayga ay sugnaatay inuu qadiim yahay lagama yaabo in la waayo, ama mararka qaar waxaa loo qoraa maa jaasa cadamuhu imtanaca qidamuhu. wixii ay bannaantay in la waayo oo mararka qaar maxay ahayd in la waayi karo, waxa bannaan oo mamnuuc ah inaanu qadiim noqon karin. marka afartaa qaacido insha allahu ayaynu bal caawa sheegi, intii aan ka gaadhsiin karayno ka gaadhsiin doono kulli waqti maadaama kooban yahay. wixii baaqiga inooga noqdana habeenada kale aan ku dari doonaa insha allahu. ka koowaad haddaynu soo qaadan markaa atagayurka, adaliilu tagayur, isbedelka. waxaa la dhahdaa atagayuru simatu lxaadis.
tagayurku waa calaamada ku tusaysa maxay shaygu inuu yahay xaadis macnaha shaygu inuu yahay shay bilaabmay oo aan qadiim ahayn sidoo kale waxa la dhahdaa kullu mutaghayirin xaadisun wax kasta oo isbedelaa waa shay maxay xaadis ah oo aan hore u jiri jirin oo aan qadiim ahayn marba hadduu shaygu isbedelayo marba haddii foomkii uu lahaa intuu ka taga foom kale uu qaadanayo wejigii uu lahaa intuu ka taga weji kale uu qaadanayo shaygaasi waa shay xaadis ah waa shay maxay aan weligii jiri jirin marka ataghayyuru simatu lxaadis ama kullu mutaghayirin xaadis qaacida labada qaab loo sheega qaacidada haddaba tusaale ahaan balan tusaalena daba qaacidadaas dhowr saadan ka bixin doonaa insha allah idinkana tusaalayaasha waxaa ku dari doontaan hadhow marka tacliiqa daliidiin diba ku darsaa dadka waxyaabahan ugu baahanna inay tacliiqa markay bixinayaan waxa loo baahan tusaalayaasha inay sii faahfaahiyaan oo tusaalaha annagoo aan keennay mid ka duwan ay keeni karaan si yar sharaxi karaan faahfaahin karaan waay tusaale hadda markaan hal tusaale ama laba tusaale markaynu eegno kow tusaale ahaan waxaa ka mid ah ilaahay bini aadanka wuxuu ku abuuray biyaha hooyada iyo ka aabbaha qofku markaa hore waa biyo macnaha waa manidu way isbedelaysaa waxay isku bedelaysaa maxay xinjirtii way isbedelaysaa waxay isku bedelaysaa dhiiggii wuu isbedelaya wuxuu isku bedelaya maxay xinjir buu isku bedelaya marka hore waa biyo haddana maxay ahaydii dhiig yar buu noqonayaa ama xinjir yar buu noqonayaa xinjirtii baa haddana isbedelaysa oo waslad yar bay noqonaysaa haddana ilmo yar baa imanaya haddana qofku waxa laga yaabaa ilmaha yar weligaa allihii taagnaan maaye nin dhalinyaro ah oo xooga buu noqonayaa haddana marka dambe oday taqaaqufay oo dhacaya oo maxay ahaydee dhulyaal ah ayuu noqonaya marka maxaan haynaa marka imika tusaalaha hadda waxaan haynaa kow maraaxilka qofka bini aadanka uu marayo oo dhammi marxalad lamid ma jirto maalin kasta marxalad buu taagay mar biyuu ahaa mar maxay xinjir buu ahaa mar waslad buu ahaa mar qof dhalinyaro xooga buu ahaa mar haddana qof da'ah oo maxay ahaydey aakhire u sii socda wey haddaba maxaan arkaynaa isbeddel qofkii marxalad buu ka tegey marxalad kaleu galay foom buu ka tegey foom kaleu galay isbeddelkaasi wuxuu ku tusayaa in shaygani uu yahay shay xaadis ah oo aan maxay ahaydey aan weligii jiri jirin oo aan qadiimayn tusaalaha labaad hadda dhirta inagu aynu beerano marka ugu horreysa waa inin yar haddana waxa laga yaabaa inuu zarac yar noqdo oo laama uu la soo baxo jiriduu la soo baxo geed weynuu noqdo haddana geedkuu noqdo maxay marka dambe inuu noqdo maxay ahaydey xaabo ama uu noqdo gebigiisu maxay ahaydey burbur inuu noqdo laga yaaba maraaxilkaasu isagayna maray waxa la mid ah maxay ahaydey xidigihii marka hore waa dukhaankaas ila asalku xidigu waxay ka samaysmayaan waa dukhaankii marka uu maxay ahaydey xidiga dhexdiisa uu ku soo ururo xajmi uu yeesho haddana maxay ahaydey wuxuu noqonayaa maxay ahaydey xidig uumigaa faraha badan leh kadib haddana wuxuu isticmaalayaa hydrogentiisii u kaydsanayd isticmaalkaa faraha badan loo isticmaalayaa dee waxay keenaysaa in daaqadii uu haystay ay dhammaato waxaa laga yaaba markaa ama inuu sidaa ku dhinto ama in xidigaasi qaabkii markii hore ahaa qaab ku duwan uu isku bedelo oo xidigii markii hore uu ku jiray xidiga aan ahayn uu wareega marka ama xataa mararka qaarkoodba uu noqdoba athuqb alaswad waxa la yidhahdo maraaxilkaasaa xidiga laftirkiisa u maray oo inaga arkaynaa inta jaranjaree uu soo maray haddaba shaygu hadduu isbedelayo oo isbeddelka aynu ku arkayno oo haddii wax kastaynu eegno bini aadan ha noqdo xoola ha noqdo xayawaan ha noqdo xidigihii ha noqoto wax kasta oo adduunyada aynu ku haynaa waxa ku socda maxay isbeddelkaas iyo taqayurkaas dhulka laftirkiisii waxay ku leeyihiin intan uu ka yaraa waxa ku dhacay maxay ahaydey tamadud maalin walba wuu sii maxay ahaydey kordhayaa maalin walba waa sii siyaadayaa maalin walba waa sii fidayaa dhulku maalinta hore muxuu ahaa wax yar buu ahaa laakiin maalin walba wuu sii siyaadayaa maalin walba waxaa kordhaya maalin walba waxaa kordhaya xajmigu haa taagnaan maayo constanti ma aha isagiina waa ka isbedelaya maalinta hore halku ahaa iyo maalintii maxay ahayd bilaamay halku ahaa aan taagnayn maalin walba maxay ahaydey sii siyaadaya ee sii ballaaranaya haddaba wax kasta oo sidaas ah oo isbeddelkaas iyo tagayurkaasi uu ku dhacayo waxaan leenahay waa xaadis sababtu xaadis ku noqdo wax markaa sababtu ku noqdo xaadis waa maxay sababta waa maqhuur waa shay la qasbayo waa shay maxay ahaydey la maamulayo waa shay qaanuun iyo qawaacidi ay xukumayso waa shay aan isagu awood u lahayn
inuu diido tagayurkan iyo isbedelkan ku socda tusaale ahaan bini aadamku ma diidi karaa markuu dhalinyaro yahay ama 20 jir yahay ama 30 jir yahay anigu halkaa dhaafmaya halkaa laygu daayo awood uma laha ma odhan karo anigu halkaa maxay ahayd ma dhaafaya weligii 20 kaasaan ahaanaya ama 15 jirkaasaan ahaanaya ama waxaan ahaanaya maxay ahayd 30 jirka ama 50 jirkaasaan ahaanaya ma odhan karo mar hadduu maqhuur yahay oo maxay ahayd iska baajin karaynin nidaamkan uu ku socdo ama nidaamkan maxay ahayd hagaya aanu baajin karaynin taasi waxay kugu cadaynaysaa maxay shaygaasi in la maamulayo awood ka sarreysa inay maamulayso inuu dacfi yahay aanu maxay ahayd awood u lahayn inuu consistency noqdo ama hal heer ama hal qaab inuu taagnaado markaan soo ururino waxaanu taaganahay isbedelku waa calaamad ku tusaysa marka shaygu inuu xaadis yahay adduunkan aynu joogno marka wax kastaba tagayurkaasa ku dhacaya oo inaga aday arkayna dhulkii hadday noqoto bini'aadamkii hadday noqoto meerayaashii hadday noqoto wax kastoo dhex jooga idinkuna tusaalayaasha waa ugu sii tusaale qaadan karaysa marka tagayurku waa calaamadda koowaad ee aynu sheegnay inay tahay inuu ku tusayso calaamadaasi in shaygani uu yahay shay cusub oo xaadisa oo mar bilowday oo aan weligii allihii aan jiri jirin daliilka labaad ee aynu ku cadaynayno ee caqliga ah ee aynu ku cadaynayno adduunyadu inay bilow leedahay waa adaliil faqr waa daliilka maxay ku tusaya baahida shay kasta oo baahan oo adduunyada yaala ma noqon karo maxay ahaydey qadiim ama ma noqon karo shay weligii allihii ma jirin waana insha allahu taa laftirkeed waxay noogu iman doontaa qawaacidda ama xujooyinka insha allahu aynu ku cadayn doono jiritaanka ilaahay oo waxa qaacidadu ay tahay kullu faqiirin laabudda lahu min qaniyin shay kasta oo faqiir ah ama baahan waxa laga maarmaan u ah cid qani ah oo baahida iyo haqabka uu baahan yahay haqabtirta marka hadda tusaale ahaan marka iminka adduunyada aynu joogno shay ka maarmaan ma jiro shay kasta wuxuu u baahan yahay shay marka way yar faahfaahidna shay kasta wuxuu u baahan yahay shay kale isagoo haddana shay kale u baahan oo aan ka maarmaynin ayaa haddana waxa uu leeyahay did iyo wax ka soo horjeeda shay kastoo adduunka yaalla wuxuu leeyahay maxay shay musaacid oo taageeraya iyo shay maxay mucaarad ah oo ka soo horjeeda wax kastoo adduunka yaalla idinku eega tusaalayaasha idinka markaa badsan kara wax kastoo adduunka yaalla musaacid buu leeyahay sidoo kale wuxuu leeyahay mucaarid wax ka soo horjeedoo baabiinaya haddii sidaa ay tahay oo shay kasta uu u baahan yahay musaacid ama shay kasta uu leeyahay mucaarid suurtagal maaha mucaarid waxaa looga jeedaa shay ka soo horjeedo didku oo baabiinaya bil carabida malaayiga iska ka yar badan mar haddii shaygu sidaa uu yahay oo shay kasta uu leeyahay maxay ahayd musaacid sidoo kale uu mucaarid leeyahay ma noqon karo qadiim ma noqon karo qadiim lagama yaabo inuu markaan qadiim noqdo sababtu waxa weeye shayga qadiimka inuu jiro jiritaankiisa ama in uu shaqo qabto oo uu hawl qabto looma shardiyo shay kale suurtagal maaha in loo shardiyo haddii shay kale loo shardiyo shaygaa kale mid u baahan buu noqonayaa hadduu shaygaa kale u baahdana lagama yaabo inuu qadiim noqdo waayo shaygaa la'aantii la heli maayo shaygaa la'aantii shaqayn maayo shaygaa la'aantii hawl qaban maayo mar haddaanu shaygaa la'aantii hawl qabanayn shaygaa la'aantii aanu jiri karin shaygaasoo jira unbuu isna jiraya shaygaas oo jira unbuu shaqaynaya markaa shayganuu ku xidhan yahay shaygan maadaama aanu ka maarmaynin shaygan hortii lagama yaabo inuu jiro oo la helo sidaas daraaddeed shaygan mid la bilaabmay weeyaan oo aan ka maarmi karaynin mar haddaanu ka maarmi karayninna lagama yaabo inuu qadiim noqdo marka tusaalayaasha markaa balaanyaro tusaale ahaan hadda iminka biyuhu waxay ka samaysan yihiin hydrogen iyo oxygen soma hydrogen keligeed hydrogen keligeed biyo samayn kartaa ma jirta lagama yaabo inay samayso oxygen keligeed biyo inoo samayn kartaana ma jirto mar haddaba haddii hydrogentii oo quraati aanay biyo keenin oxygentii oo keliyaatina aanay biyo inoo keenin laakiin labadaa isku darkoodii iyo wada jirkoodii ay samaynayaan biyihii oo oxygentii aanay hydrogentii ka maarmaynin hydrogentiina aanay oxygentii aanay ka maarmaynin taas maxay ku tusaysaa shaygan
inaanu qadiim ahayn. waayo dee biyihii in la helo oxygen keliya ma samayn karto, hydrogen keliyana ma samayn karto. labadaasi markay isla falgalaan ama labadaasi shaqadii ay wada qabtaan ama labadaasi ay isku yimaadaan ayuunbaa la helayaa biyihii. taas waa qodob. marka maxay taasi ku caddaynaysaa? suurtagal ma tahay inaynu idhaahno hydrogentu iyada oxygenta abuurtay? may. ma odhan karnaa oxygentu iyada hydrogenta abuurtay? may. waayo inay abuurtay iska daayey kama maarmi karto. Soomaali maxay dhahdeen laba qaawani isma qaadan riyo haddii dib leeyihiin dibadoodii ku qarin lahaayeen. haddii oxygen wax abuurayso hydrogen bay ka maarmi lahayd, iyada shaqadeeda iska wadan lahayd, hawladeeda iska wadan lahayd, nikada odhan lahayd. ama oxygen iyada shaqadeeda iska wadan lahayd nikada. mar hadday isku baahan yihiin oo aanay kala maarmaynin, taas waxay dalil u tahay muddo midka kale inaanu abuurin. waa qodob. suurtagalna ma aha, waynu gaari doonaa insha allah. adduunyada inay ka jiraan maxay laba shay oo qadiima ama laba shay ama laba ilaah. oo dee hadda markaad leedahay maxay ahayd oxygentu iyada hawlaheeda wadanaysa ama maxay ahayd hydrogentu, macnaheedu waxay ka dhigan tahay mid waliba gaarkeeda madax bannaanta wey. macnaha waxaad adoo idhaahdo waxay ka dhigan tusaalahaan oo kale laba ilaah ama saddex baa jiri kara. marka hydrogentii ka maarmayso oxygentina ka maarmayso hydrogen. mar haddaanay ka maarmaynin, taas waxay daliil u tahay inay maxay inay xaadis tahay oo shay mar bilaabmay uu yahay. oo waayo dee hydrogentan ciddii u diyaarisay inay oxygentu markay iyada hesho ay shaqayso ayaa labadooduba abuurtay. tusaalaha labaad, hadda marka geed iminka aan berino tusaalahaan oo kale, geedkaas wuxuu inooga baahan yahay hawo, wuxuu u baahan yahay biyo, wuxuu u baahan yahay qorax ama cadceed, wuxuu u baahan yahay ciid. culimada muslimiintu waxay dhahdaan shay kastoo adduunka yaallaa yatakawanu min ashay'ayni aw akthar. laba shay ama wax ka badan ka kooban yahay. hal shay adduunyada wax yaallo hal shay ah ma jirba. sifatul waxdaaniya ilahay baa iskale, laakiin adduunka wax yaalla oo sifatul waxdaaniya iskale ma jirba. shay kastoo adduunka aynu ku arkayno sifatul waxdaaniya ma yeelan karo. sifadaa quraata ilahay baa yeelan kara subxaana wa tacaala. idinku markaa tusaalayaasha eegoo shay kastoo adduunka yaallaa maxay laba shay ama saddex ama afar ayuu ka kooban yahay. ama ha koobnaado maxay ahaydee laba cunsur, ama ha u baahnaado laba shay ama ha u baahnaado saddex shay. shay kastoo adduunka yaallaa waa laba iyo wax ka badan. hal keligii wax qabanaya ma jiro. isagoo haddana sidaa ay tahay oo u baahan yahay laba shay ama wax ka badan, ayaa haddana wuxuu leeyahay mucaarad ka soo horjeeda. markaa tusaaleyna ku noqono, hadda geedkii muxuu inooga baahan yahay waa hawada iyo biyaha iyo qoraxdaas iyo maxay ahayd cadceeddaas iyo ciiddaas. haddaba hawo keligii geed ma inoo samayn karta? hawo quraatay geed ma soo saaraysa? may. biyo keligii geed ma inoo soo saarayaan? may. cadceed keligii oo aan biyo wadanin geed ma inoo soo saaraysa? ha sheegin. ciid quraata oo aan biyo iyo hawo aan lahayni geed ma soo saaraysa? may. intaa marka la isku keeno ayaa geed aynu helaynaa oo geed la beeri karaa oo geed inoo soo baxaya. in alla iyo inta ka horeysa ha sheegin, lagama yaabo. maxaa markaa haynaa? haddii hawadii ay doonayso inay geedkii ka qayb qaadato oo geedkii ay soo saarto, ka maarmayso saddexda kale ka maarmayso. oo hawadii biyo ka maarmayso, qoraxna ka maarmayso, ciidna ka maarmayso. haddaan doonina ciiddiina geed soo saartana, ciiddiiduna saddexdii kale ka maarmayso, qorax iyo biyo iyo hawo ka maarmayso. biyina waa sidii oo kale iyaguna, oo kuwa kale iyaguna ka maarmayaan. biyina saddexda kale ka maarmaya. haye taas maxay ku caddaynaysaa arka? taas waxay ku caddaynaysaa qaacidadeennii ahayd adduunyadu faqri iyo baahi mar walba ay isku baahan tahay, oo shay weliba uu u baahan yahay shay kale. si uu shaqadii u qabto wuxuu u baahan yahay shay labaad. hadda si ay hawadu u qabato shaqadeedii maxay u baahan tahay? biyo u baahan tahay, qorax bay u baahan tahay, cadceed bay u baahan tahay, waxay u baahan tahay ciid bay u baahan tahay. si ciiddiina ay shaqadeedii qabato waxay u baahan tahay oo geedkii u soo saarto waxay u baahan tahay cadceeddii iyo biyihii iyo hawadii. si biyihii iyaguna ay shaqadooda u qabtaan oo geedkii ay u soo saaraan, iyaduna biyihii waxay u baahan yihiin hawadii iyo qoraxdii iyo ciiddii. marka biyihii kuwii kale u baahan yahay, cadceeddii intii kale u baahan tahay, ka maarmayso. haddaba shaygu haddii inuu ta'thiir sameeyo ama uu shaqo qabto ama uu hawl qabto loo shardiyo shay kale, shaygaasi qadiim maaha. shaygaasi shay qadiima ma noqon karo.
waa shay maxay xadidan oo local ah oo aan ka maarmaynin shaygan labaad aan ka maarmaynin iyadoo sidaa ay tahay haddana shay kasta wuxuu leeyahay mucaarid adduunyada shay kastoo yaalla wuxuu leeyahay maxay mucaarid hadda geedkaa aynu hayno ee aynu beerayno waxaa laga yaabaaba mararka qaar dadka beeraha beertaa garanaya in hamaday soo dhacba oo iyadoo ciiddii aan hayno oo biyii hayno oo allahuma salli calaa maxamed hawadii hayno in duufaaniyo dabayla soo dhacaanoo geedkii gebigiisaba hamaday uu ku dhaco baaba'aba oo geedkii soo bixi waayo in xayawaanba yimaaduu geedkii iska cunaba hadday markaa shay kasta isaga laftigiisa wuxuu leeyahay shaqadii inuu qabto wuxuu u baahan yahay shay labaad haddana isagoo haddii xataa shaygii labaad uu helo oo shaqadii uu qaban karo uu awood u leeyahay inuu shaygaasi uu shaqadii qabto haddana wuxuu leeyahay shay mucaarid ah oo diidi kara inuu shaqadii uu qabto oo gebigiisoo meesha ka saaraysaba hadda hamadaygaasoo kale dee afartaasi shaqadii ay qabanayeen ciiddii iyo biyihii iyo qorraxdu shaqadii ay qabanayeen dabayshaayba hawada ka saari karta gebigeediba oo baabin karta marka waxaan uga jeednaa shay kasta oo adduunyadan yaalla oo aynu arkayno shay labaad buu u baahan yahay suu shaqo qabto shay kastoo adduunyadan yaalla oo aynu arkayno haddii xataa shaqadii uu si fiican u qabanayaba oo si fiicanba xataa uu qaban lahaana shay diida oo shaqadiisa ka hor imanaya oo daaqadda ka saaraya ayaa jira haddaba haddii sidaa ay tahay oo ashyaadii ay sidaa isugu baahbaahan yihiinoo mid ka maarmaya aanu jirin suurtagal miyay tahay shaygaas inuu noqdo shay qadiim ah oo ila qadiim waxa macnaheedu waa shay isku filan oo qani ah inuu noqdo shay qadiim ah oo isku filan ma noqon karaa jawaabtu waa maya way hadduu qadiim yahay kan uma baahdeen siduu shaqadii u qabto uma baahdeen hadduu qadiim yahay shaygan mucaaradka ku ah laftirkiisa ayuu iska difaaci lahaa marka taas waxay kuu caddaynaysaa ashyaadan cid isku habaysay inay jirto isku nidaamisay inay jirto isku shaqo inay qabtaan ugu tala gashay inay jirto program iyo barnaamij quraata u dejisay inay jirto taa xagga dambe ka dhigay maadaama qawaacidda lagu caddaynay jiritaanka ilaahay tahay laakiin hadda waxaan taaganay maxay inaan ka hadlimayna jiritaanka ilaahay waxaan ka hadlaynaa waxa ahayd maxay inaan caddayno adduunyadu inay leedahay barbilow oo daliilkeennana markaa uu caawa khuseeya maxay adduunyadu waxyaabaha lagu caddaynay inay barbilow leedahay waxaa ka mid a baahidaas meel walaa tagtaba shay kastoo adduunyada yaallada eegtaba waa shay baahan ah oo si uu u shaqeeyo shay kale u baahan si uu u jiro shay kale u baahan isagoo haddana baahidaa qaba haddana mucaarid tusaale ahaan ka u dambeeya ku daraya saddexaad kusoo gudageynayo hadda iminka atomka inkastoo wax kasii hooseeyaba la helayba waa kiskii laakiin waxaa iska naqaana oo dee inaga dhexdeena saa'id iska ahayd atomku inuu kuma yahay electron iyo proton iyo neutron haddaba electron keligii wax wadi karaa ma jira oo atom samaynaya ama neutron keligii atomka samaynaya ama proton keligii atomka samaynaya suurtagal maaha electronku proton la'aan shaqayn maayo isna maxay ahaydee neutronka isna electron la'aan shaqayn maayo labadoodaa soo wada socda uunbaa shaqadii qaban kara saddexdoodaa soo wada socda uunbaa shaqadii qaban kara lagama yaabo mid keliyaati inuu shaqadaa qabto marka mar haddii sida ay isugu xidhan yihiin oo haddii kan la waayo kii kale la waaye oo haddii imika oxygen la weyne aynaan biyo helin oo haddii electron la waayo aynaan maxay ahaydee neutron la helaynin ama aan xataa atomkiiba la helaynin oo mid kastaaba kan kale aanu ka maarmayninee ka garab shaqaynayo marka la isku soo ururiyo maxay taasi kuu caddaynaysaa ashyaadan adduunyada taallaa inaanay ahayn ashyaa isku filan oo weligeed jirtay waayo shaygu hadduu weligii jiru isku filan yahay oo uu ka maarmay cid abuurta oo uu ka maarmay cid isaga nolosha jirsiisa waxa ahayd inuu ka maarmo markuu shaqo qabanayo cidna ka maarmaabe oo cid kale aanay shaqada kula darsanin hadda ilaahay subxaana wa tacaala marka uu shaqo qabanayo ama cid ha dilo ama cid ha nooleeye dee keligii baa shaqada qabta ciduu uga baahan yahay taageero iyo garab iyo gaashaan ma jirto marka haddaynu leenahay adduunyadu way jirtay oo way ka maarantay cid abuurta waxay ahayd inay ka maaranto maxay ciddan kale ee shaqada la qabanaysa ciddan kale ee la'aanteed aanu shaqaynayn ciddan kale ee mucaarad ku ah marka mar haddii aanu
ashyaadii adduunyada taallay aanay ka maarmi karaynin waxyaabahan kale garabkeeda yaalla taas maxay ku caddaynaysaa markaa inaanay khaaliqna aanay ka maarmaynin cidda u brograamisay ama isugu tala gashan inay khaaliqa ay tahay marka waxaan ku soo ururinayaa kulli waqti wasa kooban aawadii malaa kama gaadhsiin karaan malinaya labada daliile kale dhowr daqiiqa dhiman waxaan sharixi lahaa qaacidada daliilka saddexaad alcillatu taama mustalzimatun limacluuliha hadduu jaanisku isaamo intaas kaga faa'iidsanay alcillatu taama mustalzimatun limacluuliha habeenkii horena waan soo sharaxnay qaacidadaas marka qaacidadaasi waxay burburi ku tahay falaasifada kow iyo qaar iminka laftirkoodu kuwan mulxiyiinta ka midoo ay ku leeyihiin waxa jiri jiray maadadu waa qadiim laakiin suuradan iyo qaabkan unbaa xaadis ah oo cusub marka mar haddii caalamku uu qadiim noqdo oo la yidhaahdo waa qadiim suurtagal ma aha shay dambe oo xaadisa in la helo shay dambe oo xaadisa inuu yimaado mar haddii la yidhahdo caalamku waa qadiim ila waynaga soo maray saddex ikhtiyaar baa inoo bannaan inaana caalamku waa qadiim gebigiisuba iyo in la yidhaahdo gebigiisuba waa xaadis iyo in la yidhaahdo maya caalamka qaarna waa qadiim sida kuwa kule maadada qadiima qaarna waa xaadis saddexdaa ikhtiyaarun baa inoo bannaanaayo mid afraad inoo bannaanayn in la yidhaahdo adduunyadu waa qadiim waxaa ka dhalanaysa waxa weeye inaan la helin maxay maanta baan ka dhigan doonaa taas iska sharaxi waxaa ka dhalanaysa inaan la helin shay cusub qof dhasha lama arkeen roob yimaada lama arkeen xayawaan dhasho oo yimaada lama arkeen wax alla buuro cusub oo yimaada macdan samaysanta shidaal samaysma lama arkeen haddii la yidhaha adduunku waa qadiim waxa macnaheedu waxa weeye wax dambe oo adduunyada ku soo biiraya ma jirto haddaba waxyaabahan faraha badan leeyahay maalin kasta arkay ka dhimanaya dhalanaya xayawaan ka dhimanaya dhalanaya buurahan samaysmaya macdantan samaysmaysa xidigahan samaysmaya waxaan maalin kasta cusub ee aynu arkayno maxaa keenay ile waa xaadis mar haddaynu qaadanayn adduunyadu qadiim ay tahay lagama yaabo in wax cusubba adduunyada ay ku soo biiraan halkaasay ku xidhmaysaa baasha marka mar haddaynu arkayno in adduunyadii maalinba wax ku soo biirayaan maalin walba wax cusub ku soo biirayaan taasi waxay kuga caddaynaysaa inaan adduunyadani aanay qadiim ahayn oo qowlkaa hore oo baadil ahaa kulley labada afartii qaacido labada dambe waxaan ka dhigan doonaa insha allahu majliska dambe laakiin caawa waxaan kusoo koobaynaa insha allahu labadaa qaacide hore wixii qawaacidee dambe xagga dambe ka dari karnaa ama labadaas haddaan kusoo koobi karnaa majlisyada kalaan ka dhigan doonaa insha allahu waqtiga kooban intaasaan kusoo koobayaa wixii aan sheegay ee khayr ah ee saxana fa min allaahi wixii khada ah fa min nafsi wa min shaydaan ilaahayna waan ka mugan gelayaa maxay haydee ii qabto waxaanan u qastinin intaasaan kusoo koobayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أستاذ أبو حسن هذا وما صنته يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغال فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا سريع